kalfadhigii toddobaad kulankiisii 15aad ee baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle ay maanta ku yeesheen xarunta baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle ee Jowhar ayaa waxa ay ku ansixiyeen miisaaniyada sanadeedka 2020 oo ay ku shaqeydonto dowlad goboleedka hirshabelle taasi oo maalmihii la soo dhaafay ay ka doodayeen xildhibaanadu miisaaniyada sanadeedka 2020 oo ay soo diyaarisay wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ayaa waxay gaaraysaa 14,984 dollar. kulanka lagu ansixinayay miisaaniyada sanadeedka 2020 waxaa si rasmi ah u soo xaadiray 52 xildhibaan oo uu shirgudoominayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle Cabdi Xuseen Geedi waxaana 51 mudane ay cod aqbalad leh ku ansixiyeen miisaaniyada halka hal mudanena uu ka aamusay. ay taariikhdu tahay 24 bishii saddexaad 2020 waxaa baarlamaanka hirshabelle isugu yimid kalfadhigii toddobaad kulankiisa 15aad golaha xeerdejinta dowlad goboleedka hirshabelle waxaana soo xaadirtay 52 xubnood waxaana ansixisay 51 ayaa ansixisay aqlabiyad markii codka loo qaaday miisaaniyada ku talgalka sanadkan aan ku jirno 2020 miisaan dowlad goboleedka hirshabelle marka dakhliga soo xaroodo lagu talagalay lacagta ku talgalka waxa weeye waa 14,984 dakhliga soo xaroonaya qarashkana saas ku sareysiyaasay waa lamid waa 14,984 marka saas ay mataqaanaa ugu dhamaatay codkeena saas ugu dhacay. ugu dambeyn wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka hirshabelle Luqmaan Xaaji Barqab ayaa u mahadceliyay xildhibaanadii maanta ansixiyay miisaaniyada 2020 ee dowlad goboleedka hirshabelle ay ku shaqeyn doonto. maanta waxay noo tahay farxad weyn waan la soo koobi karin maadaama wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka hirshabelle ay horgeysay labada gole ee hirshabelle wasiirada hirshabelle iyo baarlamaanka arbacadii hore ayay ahayd markii aan horgeynay golaha wasiirada hirshabelle oo ansixiyay miisaaniyada sanadda 2020 maanta oo taariikhdu tahay 24 bisha saddexaad 2020 ayay noo suuro gashay inaan baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle noo ansixiyaan miisaaniyada 2020 annagoo aad ugu mahadcelinayno miisaaniyada oo ka koobneed 14,984 oo ah dakhliga qiyaasta dakhliga la heli karo iyadoo lagu qoondeeyay qarashka baxaayo hay'adaha iyo wasaaradaha kala duwan ee dowlad goboleedka hirshabelle waxaan halkan u mahadcelinayaa dhammaan xubnaha baarlamaanka hirshabelle wasiirada iyo kolleegiska anigoo ka hadlaya magaca wasaaradda aad u mahadsantihiin sidoo kale bahda saxaafadda kasoo qaybgalkiina aadka u qiimaha badan annagoo rajeynayno insha allahu tacaala inaan kasoo dhalaalno howsha culus ee naloo idmaday si dakhliga ku qoran miisaaniyadda ee gaaraya 14,984 inaan ka dhabayno iyadoo meeshaas ay ku cadda ilaahay kasoo geli karaan dakhligaas haddii ilaahay idmo insha allahu tacaala waxaan u rajeynaynaa guul hirshabelle guud ahaan gaar ahaan wasaaradda maaliyadda hirshabelle. Saadakhal Ismaan dalka TV Jowhar.